hameenkii xalay ahaa waxaa hoteelka caalamiga ah ee Shacaynaba lagu caleema saaray Caaqil Baaruud Faarax Xasan oo ka mid noqon doona cuqaasha gobolka Saraar. Munaasabadii lagu caleema saarayay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Saraar, kuwa degmada Caynaba, cuqaasha iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka Saraar iyo sidoo kale dadweyne kale oo aad u tiro badan oo isaga kala yimi gobolada Hargeysa, Berbera, Burco iyo deegaamo kale. Waxaan ugu horreynba munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta madax dhaqameedka iyo waliba xubnaha kala duwan ee iyagu soo caleema saartay caaqilkan oo ka mid yahay Sheekha caanka ah Sheekh Cali Warsame, Sheekh Jibriil Xaaji Siciid iyo waliba mas'uuliyiin kale kuwaasoo dhammaantoodba isaga daba-maray marxaladii kala duwan ee soo maray caleema saarka caaqilka cusub. caaqilkan cusub ee keentay beesha Muuse Baale Wacays inaanu la shaqeyno oo naano idin la qaadanay iyo inaanu ducayno labada qodob ku baahanta waxaan horta Ilaahay idinka baryaynaa mar haddii beeshii isku raacday oo halkan ay fadhido beeshii Muuse Baale oo Sheekh Cali hogaaminayo oo qarankan badeesh u ah Hormuud Somaliland haddii uu hogaaminayo ay wadaan annaguna waa idin la qaadanaynaa. waxaan ku dheeraan maayo qaabku sida uu sheegay maxay tahay xubinta guddida ka midii waxay ahayd qaabka uu ka warramay oo runtii muddo ay 20 casho ku dhawaada ayaa maxay tahay heerka uu ka fakarayay ilaa markii dambe ay soo gaadhay in markaa qaab cod ah oo aqlabiyada oo dhammaystiran reerkina isku raacsan yahay insha Allah taala dhamaantii ay markii dambe ay ku ansixiyeen inuu noqdo caaqilka reerka hogaaminaya, reerka metelaya, reerka arrimihiisa ururin doona insha Allah taala uu noqon doono Baaruud Faarax Xasan Dalab. Ilaahay subhanahu wa ta'ala Allah ku asturo. haddaan inta kaga baxo waxaan ku soo dhaweynayaa kelmad kale. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa la yiraahdaa Ilaahay waxay igu malaynayaan wax ka wanaagsan baan ka baryaya. waxa dadku igu malaynayaan dadku khayr ba ii malaynayaan aniguna waa isoogahay Ilaahay wax ka khayr badan Ilaahay iga dhig waxa dadku igu sheegayaan. taasna waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ka dhigo wixii maaragtay dadku ay kugu sheegayeen iyo wax ka wanaagsan ba Ilaahay ba oge wax ka wanaagsanna Ilaahay ku waafashiyo. كل مناسبة هذا البدن وما باهنا وعاقل لعلى مساريه أو حويه لما موصيه مرخات اللجن نقنا على مسار كيس وما أنت وحي كدم بيانه اعترافه إنه عاقل إنه يهي باش مصاب على وحويه يونس عبد الرحمن قبل كسرار سومالي لان عاقل كاس مناسبة دي سيبينو شوقنا الله سبحانه وتعالى إن لو دعيه والله هم بليه والله سبحانه وتعالى حلك علوس الله إجمضي إنه الله سبحانه وتعالى أفضل ضيه أيان الله سبحانه وتعالى ويدينينا. qaar ka mid iyaguna madax dhaqameedka kala duwan ee gobolka Saraar ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay Caaqil Baaruud Faarax Xasan oo ay tilmaameen inuu yahay mas'uul ku haboon xilkan caaqilnimo ee loo doortay. nabadoonka Baaruud Xasan Dalab Baaruud Faarax Xasan Dalab aad iyo aad baan ayaan u bogaadinayaa xafladan qaayaha badanna ee loo qabtayna waan salaamayaa. xafladda san qiimo badan leh ee reerku isugu keenay Muuse Baale sidii laga dhawaajiyay ee Baaruud Faarax Xasan lagu soo doortay anigu waxaan oran lahaa hadalka waa soo gaabinayaa qoladii soo dooratay horta iyo isagaba Ilaahay khayr ha ka siiyo doorashada iyada. waa nin macruuf oo la yaqaan sidii rag horeba ka dhawaajiyay awal ban nabadda ka wanaagsanaa oo ka shaqayn jiray. beesha Muuse Baale guur ahaan anigoo ku hadlaya beesha Cumar Jibriil uqaasheeda jiif caaqilkeeda aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waanan idinku hambalyeynaa run ahaantii. anigu hadda mar haddaan xaqada ka tirsanahay oo madaxweynaha baan u hadlayaa ninka caaqilka aan noo keenteen ee Baaruud Faarax Xasan Dalab aqoon baan u leenahay macaawo waa la caleema saaraya oo waa lagu dhawaaqayaa marka hore caaqil ahaa xafiiskayga aad ku soo beertay waxay iminka in badan laga hadlayo uqaashu siyaasadda yaani ku milminaha ka baxaan uqaashu siyaasadda way ku jiraan waa xafiiska gobolkayba ka tirsan inuu dawladda ka mid yihiin oo waa mushaharo waa shaqaale dawladeed weey in runta la idin sheego weey laakiin intay siyaasadda kale yihiin waxa weey waa nabadgelyada iyo isku wadka
iyo magac u kala qaadista iyo sulaxa iyo samataliska weeyaan cuqaashu inta ugu wanaagsan bay siyaasadda ka leeyihiin ma aha inay siyaasaddu dhan ka baxsan yihiin laakiin in wanaagsan oo aad u qurux badan bay leeyihiin marka intii yar dhaafaan bay xumaantu soo baxaysaa halkani waxa weeyaan waa xaflad caleemasaar oo lagu caleemasaarayo caaqil cuqaasha somalilan ka mid ah oo ku soo kordhay oo cuqaasha gobolka saraar ka mid ah oo cuqaasha beesha muuse baalle ee yoonis abdiraxmaan ku soo kordhay ducada ay ummadoo dhimi soo jeedinayso ilaahay ha aqbilo waayo aqbalka ilaahay unbaa iska leh ummadduna ficilka ayay leedahay taana taasaan ka dhigayaa waxaan u mahadnaqayaa beesha muuse baalle ee soo caleema saartay inta dalka joogta ee qurbajoogga iyo qolqoljoogga waan u mahadnaqayaa waayo iyagaa shirkan soo qabanqaabiyey iyaga ayaa shirkan qabtay iyaga ayaa hawshan ii xil saaray caaqilka cusub caaqil baaruud faarax xasan ayaa intii aan hoteelka caalamiga Aysha Caynaba lagu caleema saarin waxaa si weyn lagu soo dhaweeyey afaafka hore ee magaalada Caynaba iyo dadweyne kala duwan oo lugya gaadiidba ku soconaya ay ku soo wareejiyeen shidadka iyo shawaaricda kala duwan ee gudaha magaalooyinka Caynaba iyo Ceeldhaab jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.